wada Somaliland dibaba wanaagsana ideeduna qodansana dadkeedu horumarkiyo aqoonta u heelana bulshadu gariga tantiyo idaha ku wanaagsana bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan soo dhaweynayaa abwaanka weyneed abwaan Cabdinuur Allaale iyo kooxdiisan la socota muhiimka waxaan leeyahay welcome ku soo dhawow gobolka Saaxil ku soo dhawow degmadii Berbera waan ku faraxsanahay inaad nagu soo buuqato gobolkayga waan ku faraxsanahay Berbera oo aan filayo inaad bariyaha aanad imanin inaad maanta noogu timaado waxyaabo fara badan oo maxaan ku dhahdaa saxaafaddu inta badan laga wada socdaaye inaad maanta indhaha ku soo aragto waa kugu soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay qalbi furan iyo gamco furan ku soo dhawow waa degmadaadii waa gobolkaagii welcome baan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore haddaan ka bilaabo ilaahay baa mahad leh maanta igu simay Berbera inaan imaado aniga asxaabteyda oo waliba xidiga geeskiyo waqal jaawro saaxiibkaya iyo maayirka iyo gudoomiin barasaabkii alxamdulillah xalay baan soo galay xaladaan soo galayna saakana waa kan soo sidii ugu dhaqso badneed baan la kulmay waa farxad ii gaar ah oo ku hambalyeeniyo sida inoogu fudeydeen sidii aan u arki lahayn Berbera aniga 80kii bay ugu dambeysay sanadkii 1980kii Berbera oo maanta waxa ku soo biiray markaan xalay arkayna wax ilaahay loogu mahadiyo iyo noqotay wax qabadkana ha u badnaadaan labada nin maanta hor fadhiyoon weligeeba Djibouti kala socday wax qabadkooda iyo sida ula dhaqmayaan ummadooda ayaa ay soo jiidatay inaanu imaado oon maanta iyagoo nool aan idhaaho waad ku mahadsantiin wixii aad ummadiina u qabateen ama sadalkiinaba u qabateen xusuus yaroo gaarana waan soo sameeyay oo ay ku xusan tahay wax qabadkoodu labadaba barasaabka iyo maayirkaba aad baan ugu mahadnaqayaa sida wacan ay dalkan u dhiseen gaar ahaan Berbera dariiqyadan xalay marayay oo dalka intiisa badani baan u lahayn dabadii oo Soomaaliland taagnaa laakiin farxad weyn bay gelisay xalay 80kii dariiqan maray iyo maanta markaan soo galay dariiqan ka arkay iyo dhismaha ka yaaliyo dadku sidoo faalalka u yahay in laba baabuur oo istaba joogsanaya anu waayay aad baan ugu mahadnaqayaa barasaabka iyo maayirka ummadiinaad wax u qabateen taariikh la xusaanad ka tagteen ku deeshana waad mudantihiin adduunka la joogi maayee bariba isbedel baa dhacaya laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa dambe idin bedeli doona lacala dad ka tagtaan inay wax qabadkaad maanta qabateen ilaahay tuso iyagana inay ummadooda iyo dalkooda wax u qabtaan aad baan idin salaamayaa وبنستعين على أمور الدنيا والدين مركز إلهي بمحل سبحانه وتعالى مركز لبعض بي ما أنت فرحات شرف نوتهاي إن أبوان كوين قالقة تاريخ دير كله مجا أما ضدك كوه الله لقدان أفق سومالي لما أنت كوه الله باي يقانان عبد النور الله عليه وأنا ولين كسره بينا فرحات جلنسا وين نديري جلنسا أنا وحنو تهاي من نقولنا ضد أمانته كجماعة وحنقولنا ضد أمانته بالشدة أنت نظيف تهاي شيكتو كاميرا كعضو من السبيريت ونقطه أنت وقتك نوهرسن إن كسي لا والله من عادبان مفرح سنة وأنا كون مهد علينا حرنتي أنا مرنا بيلا وكرين حديقة جيسكا iyo abwaanin balaaran oo fara badan iyo maxaan ku raada abwaanintii horeba inay heestii ugu dambeysay xadiga geesku ay Berbera u tiriyeen degmada Berbera iyo maamulka Berbera lacag kuma bixinin xidigahuna lacag kaga bay doonin oo waxa ay qaadaan kaga doonayeen ama ay lacag kaga rabeen inay Berbera kaga helaan umay qaadeen waxay ahayd dareen bay ahayd ka dhashay abwaanka ka dhashay ama maxaan ku fanaaniinta إلهي سبحانه وتعالى ده وقابوري آد بنقول مهد علينا لما أنتود
kuwa kale u soo heesay iyo kuwa heesi doonaba waxay noo tahay farxad waayo dhadhan gaara bay leedahay marka waa wax ka soo go'aya meel fog waxaan xasuustaa waqtiyada nololaha ku jirnay 2012 aan dooninay golaha deegaanka soo sharaxnay ayaa waxaan la socon jiray nin abwaana oo dadkan gabayada noo tirin jiray dadna nin mas'uuliyiinta ugu sareysay gobolkana ayaa uu yeedho wuxuu ku yiri war nin lacagta inta doontid qaado waxa ashubayso oo wax kaga darbo ku yiri wuxuu nin carabku ma kara buu yiri carab wax ka saadaysiiso lacagta waan qaadan doonaa laakiin carabku qalbigu ka yimaada ma kara buu karimaaya maanta karimaaya waxaan shubayo marka xawiyaan abaanintu waa hibe Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay kuna isagu oo kuna ilhaaminayo oo ka yeersiinayo waxaan ay ku hadlayaan marka aad baan mahadsan tahay dimaradii odaygu ugu weynaa maanta nagu soo booqday waliba naguna amaanay dhammaan fanaaniinta oo dhan reer Soomaaliland iyo cid kasta oo dalkan iyo gobolkan iyo degmada Jacalbana waxaan leenahay waa mahadsantiin aad u salaamaya kulay maamulka walaydin la wadayo in baa idin ka hooseyso idin la wada inta idin ka hooseysa maamulka in la wado waa aad iyo aad baan u salaameynaa bulshada gaar ahaan reer Berbera ilaahay garansiiyay inaad si toos ah u wada socotaan oo dhex socotaan oo wax iska aqbashaan aad iyo aad baan bulshada reer Berbera iyo dhammaan Somaliland oo dhan baan u salaamaya walaad baasantiin iyo wax qabadkiisa oo qabta barsaafo عيارة Somaliland, Tunido, Khambali Kotiri.